dunida waxa ay warbaahinta adduunka caawa la yaaban yihiin sida Trump uu ugu maadsaday hogaamiyaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky oo booqasho ku tagay dalka Mareykanka isla markaana Trump u saxiixaya macaadin fara badan oo dalkaasi Ukraine leeyahay si looga qaado lacagihii iyo waliba hubkii la siiyo xilliga dagaalka ay kula jireen ama waliba uu socdo dagaalkaasi ee Ruushka haddaba hanaanka libiskiisa iyo qaabkiisa ninka hogaamiya dalka Ukraine ayaa waxay noqotay mid shactiro leh kadib markii Trump uu ku yiri hadal aan la malaysan karin Trump waxa la yiri waa dhalacaday wixii ku jiraan ma qarsoomaan haddaba sideeba arrinta loo dhigay si gaar ah warbaahinta Ruushka ayaa si shactiro leh wax uga qoraysa arrintan oo ku tilmaamaya Volodymyr Zelensky nin waayuhu uu dileeday oo u baahan xilligan in isagaba la badbaadiyo warbixin arrintaasi ku saabsan ayaan rabaa saaxiibayaal si gaar ah inaan muuqaalkan ugu eego oo aan ku soo bandhigo Trump waxa uu mar kale leeyahay bariga dhexe waa in xal loo helo fowdada taaganna waa in la soo gabagabeeyo wax aan fiirsan karnana intaaba maaha aqyaaray soo dhawaada caalamka isbedelo waaweyn ayaa soconaya waxay u muuqataa qaabkii saaka ee uu hogaamiyo wuxuu yiri in caawa uu iska bedelo sabab la xiriira dhaqaalaha oo noqonaya hadda waxa ugu badan ee wax lagu jaangoynayo haddii shalay aad wadatay hub culus oo wax baabi'iya ama aslaxatu dimaaru shaamil waxay carabta yiraahdaan in nuclear-ka ah hadda waxay macnaheedu tahay inta dollar iyo dahab aad haysatay ayaad wax jihayn kartaa waa qorshaha weyn ee hadda Trump uu caalamka uu ku jihaynayo qodobadaas ka soo degaya ee Trump salaamaya waa hogaamiyaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky jilaagi caanka ahaa haddana ah madaxweynaha dagaalada badan wajahaya waxa uu dalka Mareykanka u tagay in uu saxiixo macaadin wadankiisa uu leeyahay oo naadir ka ah adduunka isla markaana waxa uu bixinaya oo si degdeg ah waliba uu ku bixin doona lacagihii iyo hubkii qaaliga ahaa ee Mareykanku ay siiyeen markii ninkan faraha loo galiyo dagaalka dalka Ruushka oo la yiri waad ku aadaayay iska celi ninkii ahaa Vladimir Putin hadda Trump waxa uu leeyahay eega waxa uu igu yimi markii uu gurigiisa ku joogay nin xitaa fahmi karaya maamuuska diblomaasiga ah maaha inta markii uu dhacay wariyaashii ayaa bilaabay inay qoslaan Zelensky waa istogaya sidaad u muuqataanba kadibna waxa uu isu diyaarinayaa sawirradii protocolka in la qaado garabka ayaa laga taabanaya sida idin muuqanayso waxa la leeyahay nakaxe inta markay dhacaan kadib labada nin waxay hore u galayaan shaqooyinkooda Trump ayaa warbaahinta la hadlaya waxa uu leeyahay Ukraine hogaamiyahooda Zelensky waxa uu saxiixi doonaa macaadin naadir ah oo Mareykanku ay qaadan doonaan markuu inta yira waxa uu leeyahay saxiixa waxaan filayaa inuu noqdo mid cadaalad ku salaysan hadda ogow saxiixa qudhiisa ayaa noqonaya buu leeyahay mid cadaalad ku salaysan oo aan dhibaato keeni doonin marka Zelensky waayadii ugu dambeysaba si qorshaha maanta uu caawa saxiixayo oo u fuliyo waqti badan ayaa la geliyay warbaahinta ayaa laga hor weeraray baraha bulshada ayaa wax lagu soo qoray waxa la yiri waa dictator aan faham badan ka haysan sida dalkiisa loogu shaqeeyo sida ummadda loo badbaadiyo iyo sida loo hormariyo dalka Ukraine waa nin iska tuura oo dab isaga dul ciyaaraya ayuu yiri hadalkan ayuu Donald Trump jeediyay markii uu xafiiska yimid isla markaana dhinacyada Ruushka iyo Mareykanku ay kulamo ku yeesheen dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ninkan ayaa haddaba waa Zelensky waxa ku dhawaaqay fiin aad u cod dheer oo kii gabyaaga Soomaaliya u lahaa fiin yahay adaa ololayo oo hin ciirsaday haddii aan lagu imaanad aamus lahayd maxaad aragtay waan kula qabaa urkutaalada ninkan urkutaaladii hayse ayaa waxa loogu daray bahdilaad diblomaasi ah ilaa uu gaaray inuu yiraahdo war anigu waxaan ahay nin la soo doortay Trump uu nin xukunka iska jooga maahi waxaan ahay nin dimuqraadiyad meesha ku yimid haddii xitaa dalka Ukraine uu badbaadayo kursiga aad leedahay kaliya taliya ku tahay xitaa waan kaaga tagayaa laakiin sheekada loo socday inta iyo ninkan kursigiisa in la qaato ma ahayn waxa loo socday
waa kaydka iyo khayraadka dabiiciga ah iyo macdanta naadirka ah ee dalka Ukraine waa kaas caawa odaga u taagan isagoo funaanad madow wata inuu saxiixo isla markaana mustaqbalkii dalkiisii bixinaya halkan waa meesha ugu badan xataa wadamada Yurub ay aad uga murugoodeen oo ay ku yiraahdeen waxa Trump uu sameeyo Ukraine loo goysanayo shacabka Ukraine ma geeyaan waxay ahayd in laga dhaafo laakiin waxa la yiri danta iyada ka adag oo mararka qaar mas'ale ayaa loogu saxdaa caawa waxa Ukraine haysata oo ninka la leeyahay waxa uu ku soo labisto oo ma qalmin inuu Trump ku hor yimaado waxa la yiri gobowaatiis inda buuxisa warbaahinta adduunka haddaba arrintan si qosol wax uga qoraya telefishinka RT la yiraahdo ruushka uu leeyahay waxa uu leeyahay dalka Ukraine waxa uu ekaaday gobolka koob iyo kontonaad ee Mareykanka sida qaybtiisa afka carabiga caawa ay baahisay Volodymyr Zelensky hadda mushkilad adag ayuu wajahayaa waxa la eegi doonaa macdantii habbixiye maxaa badiilo odaga haystaa waxa ugu badan ee caawa Kiev News ay qorayso ayaaba arrinta kamid ah oo banaanka ay keenayaan isbedelada waaweyn ee hadda socda wax badan ayaad ka ogaan kartaa dalkaada haddii aadan si macno leh u hogaamin iyo dadkaadaba mararka qaar adiga ayaa mustaqbalkii jiilasha dambe gacantaada ku lumin doona halkan cashar weyn oo diblomaasiyadeed ayaa ku jira cidda ka xoog badan ha isku taagine qawaaniinta adduunka ku dhaqan si aad wax badan u fahanto haddii aanu caqliga ku hagin garashadaadana aad ka socon talaabo kasta oo aad qaado macno ma keeni karaan haddii meeshii loogu talagalay iyo jihadii mudnayd aadana baarin waxaan u malaynayaa wax badan inaad fahanteen qodobka halkaas haddii aan uga tago ninkii Trump ahaa caawa war ayuu soo saaray waxa uu leeyahay bariga dhexe qaabka uu jiro haddii aan Trump ahay kuma fiirsan karo waa in isbedel weyn oo macno leh lagu sameeyaa bariga dhexe hanaankan foodada ku dhisan iyo dagaalka iyo waliba isjiidjiidka iyo awoodaha isku muuqanaya wax la qaadan karo haba yaraatee maaha hadalkan waxa uu jeediyaa caawa oo waliba warbaahinta dunida ay mar kaliya breaking news isagoo ah ay alert u wada direen guud ahaanba adduunka in maalmaha soo socda ee wasiirada amuuraha dibadda carabta ay qorsheynayeen inay Trump ay tagaan oo yiraahdaan saaxiibo labadan farood mid qaado fartaana waa carab fartaana waa Israa'iil macnaheeduna ma aha in arrinta Falastiin iyo Gaza sidaad adiga rabto oo Netanyahu uu ku sheegay u qaadato annaga intaasaan bixinaa intaasaan sameynay Sacuudiga intaasoo bilyan ayuu Mareykanku ku maalgelinayaa marka saaxiibtinimadu inay macno samayso intaas ay carabta lahayd adiga marka waaba ka hor dhaco waxa uu leeyahay sidaad wax moodeen maaha caalamka nin Trump la yiraahdo ayaa madaxweyne ka ah dalka ugu awoodda badan waxaan anaga rabnaa ayaana shaqeynaya waxaan filayaa inaad wax badan ka fahanteen isbedelada waaweyn waxay idin la tahay aragtideena qaybta hoose ee commentiga iyo faallada ku qora aad baad u mahadsantihiin taxaniya caawa barnaamijka Barrow Show intaas ayuu ku dhan yahay Ramadaan wanaagsan